deegaanka la yiraahdo Puntland waa deegaan Soomaaliyeed. maamulka Puntland ayaa la wareegay xiriyaha ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ee ku leeyahay magaalada Carmo ee gobolka Bari. Wararkii ugu dambeeyay ayaa muuqaalkan idin kula wadaagi doona dhinaca kale magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug waxa ka soconaya kulamo kala duwan oo wada madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni oo habeennimadii xalay safar qarsoodi ku gaaray magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. maxaa ka jira inuu markaas uu ku daba jiro hubkii ciidamada BSF ee ku lahaayeen xerada Istanbul ee waqooyiga magaalada Gaalkacyo oo markaas la ballanqaystay odayaasha dhaqanka iyo kulamo kala duwan ka wada maamulka Puntland waxay ku guuleysteen in ka yar 48 saac inay markaas soo afjaraan ciidamadii ka amar qaadanayay dawladda waqtiga uu ka dhamaaday hogaamiye madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. waxaan kula wadaagi doonaa xogo dheer oo ka soo baxaya sababta ku kaliftay in ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya xerooyinka ay ku lahaayeen magaalada Carmo ee gobolka Bari ay isaga baxaan iyo ciidamada maamulka Puntland oo halkaas la wareegay. war-saxaafadeed ay soo saareen iyo xogay ugu dambeeyay macluumaad dheeri oo soo baxaya ayaa muuqaalkan idin kula wadaagi doonaa. soo dhawaada saaxiibayaal, waa maalinimada Sabtida taariikhdu ku aasaysan tahay 8 bisha 8 August sanada 2026. haddii aynu ku bilaawno magaalada Carmo ee gobolka Bari, wararka ka imaanaya waxay tilmaamayaan in ciidamadii markaasi ka amar qaadanayay dawladda dhexe ee federaalka Soomaaliya ee ku sugnaa xerooyin ku yaala magaalada Carmo ee gobolka Bari ay isaga baxeen ciidamada darawiishta maamulka Puntland iyo sidoo kale kuwa booliska maamulka Puntland ayaa la wareegay magaalada Carmo ee gobolka Bari ee maamulka Puntland. waxaana markaasi la sheegay in ciidamadii dawladda federaalka Soomaaliya halkaas isaga baxeen iyadoo wax dagaal ah halkaas uu ka dhicin. waxay markaasi ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ay baneeyeen xiriyaha halkaas ku lahaayeen ciidamada maamulka Puntland ayaa halkaas la wareegay. waxay soo saareen war-saxaafadeed ay markaasi ku sheegeen kooxaha hubeysan oo ku sugnaa magaalada Carmo halkaas laga saaray ciidamada amniga darawiishta dowlad goboleedka Puntland iyo sidoo kale kuwa booliskana ay wadaan howlgallo lagu xaqiijinayo amniga magaalada Carmo ee markaasi gobolka Bari ee maamulka Puntland. Saciid Cabdullaahi Deni xukuumaddiisu waxay ku guuleysatay in wax ka yar 48 saac ay banaanka u saartay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya. magaalada Carmo oo ka tirsan gobolka Bari ee maamulka Puntland waxaa haatan ka talinaya ciidamo ka tirsan kuwa maamulka Puntland ee ka amar qaata dawladda hogaamiye Saciid Cabdullaahi Deni, waxayna wadaan dhaqdhaqaaqyo ay halkaasi ku doonayaan inay ku soo afjaraan ama ay kula wareegaan amniga magaalada Carmo ee gobolka Bari. ciidamada maamulka Puntland oo war-saxaafadeed soo saaray ayaana waxay sheegeen in markaasi kooxaha hubeysan oo ka talinaya magaaladan ay isaga baxeen. waxay tilmaameen in markaasi ay la wareegaan magaalada Carmo ee gobolka Bari. waxay sheegeen in xilligan wixii ka dambeeyay ay sugi doonaan ammaanka magaalada. iyagoo war-saxaafadeed soo saaray waxay ku yiraahdeen dawladda Puntland ayaa maanta si rasmi ah ula wareegtay taris ciidan oo ku yaala magaalada Carmo ee gobolka Bari kaasoo ay hore u deganaayeen maleeshiyada hubeysan kuwaas oo deegaanada maamulka Puntland ka wada falal qalqalgelinayo amniga iyo xasiloonida bulshada. la wareegista tariskan ayaa qayb ka ah tallaabooyinka dawladda Puntland ay ku xoojinayso amniga, kala dambeynta, awoodda hay'adaha dawliga ee deegaanada maamulka Puntland. ciidamada war-saxaafadeedka sii wada ayaa yiri ciidamada maamulka Puntland waxay si buuxda ula wareegeen xarunta waxaana la xaqiijiyay amnigooda iyadoo markaasi maamulka goobta ah iyadoo la faray dhammaan dhinacyada hubeysan inay u hoggaansamaan hay'adaha sharciga ee dawladda Puntland. dawladda Puntland waxay cadeynaysaa inay sii wadi doonto tallaabooyinka lagu xaqiijinayo amniga, ilaalinta shacabka iyadoo dhammaan markaasi howlgallada la fulinayo si waafaqsan sharciga iyo dastuurka maamulka Puntland. ayaa lagu yeeray war-saxaafadeedkan ka soo baxay ciidamada booliska maamulka Puntland kadib markii ay la wareegeen magaalada Carmo ee gobolka Bari ee maamulka Puntland. waxaana halkaas ku sugnaa ciidamo ka amar qaata dawladda federaalka Soomaaliya ee dawladda dhexe ee federaalka ee markaasi maalmihii u dambeeyay halkaasi ka talinayay. odayaasha dhaqanka oo waan waday waxa lagu guuleystay in wax dagaal ah xeradaasi uu ka dhicin isla markaana ay gacanta ku dhigaan ciidamada ammaanka maamulka Puntland. dhinaca kale magaalada Gaalkacyo gobolka Mudug waxaa ka soconaya dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo wada madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni oo habeennimadii xalay safar qarsoodi oo dhanka lugta ku gaaray magaalada Gaalkacyo gobolka Mudug. halkaasi wuxuu ka wada kulamo oo la qaadanayo odayaasha dhaqanka iyo sanaadiiqda magaalada Gaalkacyo gobolka Mudug oo dhawaan uu ka dhacay dagaal u dhexeeya ciidamada dawladda markaasi BSF ee markaasi ay taageertay dawladda federaalka Soomaaliya iyo ciidamada darawiishta maamulka Puntland iyo sidoo kale kuwa markaasi booliska maamulka Puntland.
xeradii Istanbul ee waqooyiga magaalada Gaalkacyo ee ku tiilay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Midowga waxaa haatan ku sugan ciidamada daraawiisha dowlad goboleedka Puntland iyo sidoo kale kuwa booliska Puntland oo isgarabsanaya madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni haatan wuxuu ku sugan yahay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Midowga odayaasha dhaqanka magaalada Gaalkacyo ee gobolka Midowga dhanka ay Puntland maamusho waxa uu la qaadanayaa kulamo kala duwan waxa laga hadlayaa xaaladda markaasi deegaanada iyo sidii colaadda loo soo afjari lahaa dhinaca kale magaalada Gaalkacyo dhanka ay Galmudug maamusho waxa ku sugan taliyaha ciidamada BSF-ta ee markaasi Maxamuud Diyaano walaalka ciidanka booliska ama markaasi taliyaha ciidanka booliska Diyaano la dhashay ee lagu magacaabo Maxamuud Diyaano halkaasi wuxuu hogaaminayay ciidamada BSF ee markaasi ku sugnaa waqooyiga magaalada Gaalkacyo xerada Istanbul ee markaasi ku taala magaalada Gaalkacyo gobolka Midowga waxaa dhawaan markaasi dagaal halkaasi ka dhacay loo guuleystay Siciid Cabdullaahi Deni inuu markaasi uu ku guuleysto ama markaasiba uu si rasmi ah ula wareego xeradii Istanbul ee waqooyiga magaalada Gaalkacyo haatan waxa ka babanaya calanka maamulka Puntland waxaana Siciid Deni uu ka wadaa kulamo kala duwan magaalada Gaalkacyo gobolka Midowga oo lagu xaqiijinayo ammaanka deegaanada maamulka Puntland ama markaasi magaalada Gaalkacyo dhanka ay Puntland maamusho ciidamadii ka amar qaadanayay dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya garabna ka heliyay ciidamada BSF ayaa halkaasi isaga guuray waxaana Siciid Cabdullaahi Deni uu ku raajooga ayaa la leeyahay sida xogaha qaar bay tilmaamayaan hub markaasi laga furtay kooxda BSF ama markaasi ciidanka BSF iyo sidoo kale hub markaasi dowladda federaalka Soomaaliya ay tiin dagaalku ka dhacay magaalada Gaalkacyo u waday ciidamada BSF ku sugnaa waqooyiga magaalada Gaalkacyo xerada Istanbul ee waqooyiga magaaladaasi iyadoo maleeshiyada hubaysan ay la wareegan hubkaasi war ka soo baxay dowladda federaalka sida hadalka loogu dhigay Siciid Deni hubkaasi ayuu ku daba joogaa wuxuu kala hadlayaa odayaasha dhaqanka sidii gacanta loogu gelin lahaa madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ama markaasi maamulka Puntland Siciid Deni magaalada Gaalkacyo xalay safar qarsoodi oo kaga baxay magaalada Garowe oo la sii shaacin ayuu ku gaaray magaalada Gaalkacyo gobolka Midowga waxa uu wadaa dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay isagoo markaasi ku guuleystay in wax ka yar 48 saac uu iska saaro ciidamo ka amar qaata madaxweynihii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud oo sidoo hadalka u dhigay waxaana haatan xayisad cakirnaan ama la soo warinayaa inuu ku sugan yahay taliyaha qaybta kontoniyafaraad General Jimcaale Jaamac Takar oo isagoo ku sugan duleedka magaalada Garowe ee gobolka Nugaal caasimadda maamulka Puntland General Jimcaale Jaamac Takar oo wata ciidamo danaba oo ka amar qaata dowladda federaalka Soomaaliya ayaa xogo waxay tilmaamayeen inuu yahay ciidamada kaliya ee ka amar qaata dowladda dhexe ee federaalka ee ku sugan magaalooyinka ay Puntland ee maamusho waxaana la soo warinayaa in magaalada markaasi Garowe duleedkeedu ku sugan yahay halkaas inuu ku markaasi oo isagoo ku dugan yahay waan ay markaasi wadaan odayaasha dhaqanka ee lagu xalinayo markaasi xiisada ka taagan maamulka Puntland 48 saac way ku guuleysatay inay soo afjarto gebi ahaanba markaasi guud ahaanba ciidamada ku sugnaa magaalada Gaalkacyo iyo sidoo kale magaalada Boosaaso deegaanka Carmo markaasi magaalada Carmo lagu magacaabay gobolka Bari magaalada Boosaaso waa laga saaray xeradii taliska ee markaasi ku dhawaad 20 sano ay ku sugnaayeen ciidamada BSF ee ka amar qaata dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya waxyaabaha ka soo kordha xiisada maamulka Puntland iyo sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya oo markaasi Siciid Cabdullaahi Deni uu kaga adkaaday dowladda dhexe ee federaalka halkan oo markaasi heerka TV ayaan idin kula wadaagi doonaa qeyrtan daawanaysay muuqaalka meel dheer gaarsiya aad baad mahadsantihiin